tahay waxaynu soo qaadanaynaa caawa shimbir ka mid ah shimbiraha law markaasi qalqay aynu soo qaadanaynaa haddaba shimbirku markaynu ka hadlayno waa bahla awood leh oo markaasi dulaan ayagoo adeegsanaya baalahooda qaarkood dulimaadkoodu waa uu dheer yahay halka qaarna uu markaasi kooban yahay qaarkood way dheereeyaan oo xawaaro sare ay markaasi ku dulaan halka qaar kalena ay soo gaabiyaan oo xawaaro yar ay markaasi ku dulaan shimbirtu waxa ay leedahay gafuur dhuuban iyo indho yaryar hase yeeshee shimbiraha lagu qalqay waxaa markaasi la sheegaa in midba mid kale ay markaasi aad uga qurux badan tahay caawa waxaynu ka hadlaynaa dagiiranka waa shimbir ka mid ah shimbiraha aadka loo dhaqaalaysto wuxuu madaxa kore markaasi ku leeyahay waxa weeye koofiyad shimbirkana ayaa markaasi la sheegaa haddii la hor dhigo waxa uu markaasi iska arkayo in uu aad isu fiiriyo quruxdiisa iyo siduu markaasi alla uu qalqay in intaba uu ku mashquulo haddii uu biyo cabaya oo iska dhex arka biyahaasina ama haddii muraayad la hor dhigo waxaa markaasi la sheegay inuu aad isku fiiriyo waa shimbir aad u qaylo badan waxaana markaasi la sheegaa in marka ay arkaan wax naftoodu halisgelinayo in ay aad u buuqaan waxay isu bahaystaan dilka masaska iyo wixii naftooda halisgelinayay waxayna u nool yihiin koox ukuntiisu waa mid aad u caafimaad badan hilibkiisana waxaa la sheegay inuu aad u macaan yahay ukumihiisa waa kuwa ka yar kuwa digaaga waa shimbir haddii la dhaqaalaysto aad u jecel xornimada ma aha sida digaaga si kasta oo markaasi aad u dhaqaalaysata lagama yaabo ayay dadka dhaqaalaysta ay dhahaan inuu markaasi ku tixgeliyo hadday buubaan keliya wax yar ayaa markaasi la sheegaa in ay buubi karaan habeenkii geedaha korkooda ayaa la sheegaa in ay ku baryaan waxaa u dhalaa 6 ilaa iyo 12 ukumood halka dooradu ay dhasho 21 ukumood laakiinse dhadhanka labada ukun ee doorada iyo dagiiranka ayaa isku mid ah laakiinse waxaa markaasi la aaminsan yahay in tan dagiiranku ay aad uga caafimaad badan tahay ukumahaasi waxaa ilmo ku noqdaan 24 maalmood ilaa 30 maalmood inta markaasi u dhexayso waddamo badan oo Kenya iyo Uganda ay markaasi ku jiraan ayaa la sheegay in aad looga dhaqaalaysto wuxuu cunaa midhaha cayayaanka ayuu sidoo kale cunaa sida caarada hangarlaha iyo xididada geedaha ayaa la sheegay inuu aad u cuno dalkaasi Uganda waa waddan ka mid ka ah qaaradda Afrika marka la fiiriyo caan ku ah dhaqashada dagiiranka shimbirkani waxa uu ku jiraa shimbiraha aadka u qurxan oo markaasi aan la qalqay waa shimbir waqtigiisa ugu badan la sheegay inuu ku lumiyo raadinta midhaha dhulka yaallo xilliyada kuleelka ayaa la sheegay inuu harsado waa shimbir meelaha qabow aad u jecel in uu ku nasto haddii qorax kuleel ay jirto waqti badan ayuu noolaan karaa biyo la'aan ma aha shimbir mar walba u baahan in uu markaasi biyo cabbo waa shimbir xoolaha aad u daba socdo sida ariga iyo looda wuxuu cunaa shilinta xoolahaasi jirkooda ka soo dhacda waxay qabaan hogaamiye ay ka amar qaataan marka ay socdaan waxaa la sheegay inay safaf u socdaan ayagoo ka amar qaadanaya hogaamiyahooda waxa uu noolaan karaa dagiiranka 10 ilaa iyo 20 sannadood